kulan wanaagsan daawadayaal wararka cayaarahana waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo soo bandhigtay weeraryahankeeda cusub ee David Villa kaas oo ka hadlay arrimo dhowr ah. Kooxda Manchester United oo markan u jeesatay kooxda Barcelona oo ay ka doonayso ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Cesc Fabregas. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal ku eegaynaa ee u diyaar garooba. kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa soo bandhigtay weeraryahankeeda cusub ee David Villa kaas oo ka hadlay arrimo dhowr ah. David Villa ayaa lagu soo bandhigay garoonka kubadda cagta ee kooxdaasi Atletico Madrid iyadoo halkaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen taageerayaasha kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid. Laacibkan reer Spain ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen buuxinta booskii uu faarujiyay weeraryahankii hore ee kooxdaasi Falcao iyo sababihii ku qasbay inuu ka soo tago kooxda difaacanaysa horyaalka Spain ee Barcelona. Villa ayaa sheegay in macalinka cusub ee kooxda Atletico Madrid Diego Simon ay ka wada hadleen inuu ka ciyaaro dhanka weerarka waxaana uu carabka ku adkeeyay in kooxda aysan tabi doonin Falcao oo xagaagan ku biiray kooxda Monaco. David Villa ayaa toddobaadkii hore ku biiray kooxda Atletico Madrid waxaana uu u saxiixay qandaraas 3 sano ah oo uu kooxda kula joogayo ilaa 2016. kooxda Manchester United ayaa markan u jeesatay kooxda Barcelona oo ay ka doonayso ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Cesc Fabregas. United oo horay u weyday ciyaaryahankii qadka dhexe ee kooxdaasi Barcelona Thiago Alcantara oo doorbiday inuu ku biiro kooxda Bayern Munich ayaa iminka u jeesatay inay kooxda ka dalbato Fabregas waxaana tababare David Moyes uu aaminsan yahay inuu heli karo laacibkaasi maadaama uu waayay Thiago Alcantara. Manchester United ayaa laacibkaasi ku doonaysa 30 milyan oo gini iyadoo ay xusid mudan tahay in Fabregas uu diyaar yahay haddii ay kooxdu iibinayso balse dooqu uusan isagu lahayn. Tababare Moyes ayaa la sheegay inuu ka helay qaab ciyaareedka Fabregas waxaana kooxda Manchester United ay iminka doonaysa ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaaro. heshiiskii Barcelona ay kaga soo iibsatay kooxda Arsenal ayaa dhigayay in haddii ay dhacdo in la iibiyo Fabregas ay mudnaanta koowaad leedahay kooxda Arsenal oo iyadu dhawaan sheegtay inay ka fakarayaan sidii ay ciyaaryahanka mar kale dib ugu soo celin lahaayeen garoonka Emirates. iyadoo taasi ay jirto haddana warar sugan ayaa sheegaya in Fabregas uu doortay Manchester United haddii ay dhacdo inuu Premier League dib ugu laabto. naadiga Chelsea ayaa sheegtay inay xagaagan iska fasaxayso 4 ka mid ah ciyaartooydeeda oo ay ku jiraan ciyaartooy rugcada ah. Chelsea ayaa qorsheynaysa inay iska fasaxdo ciyaartooyda kale ah John Obi Mikel, Branislav Ivanovic, Demba Ba iyo Victor Moses. tababare Jose Mourinho ayaa la sheegay inaysan ku jirin kooxda uu la soo shartagi doono xagaagan ciyaartooydaasi waxaana lagu waramayaa in ciyaaryahanka reer Nigeria Mikel Obi uu ku sii jeedo dalka Turkiga waxaana doonaysa kooxda Galatasaray. John Obi Mikel ayaa ka mid ah ciyaartooyda sumcadda weyn ku dhex leh taageerayaasha kooxda Chelsea iyo Stamford Bridge waxaana ay haatan u muuqataa inuu macsalaameyn doono garoonka Stamford Bridge oo uu mustaqbal ku soo qaatay in muddo ah. Ivanovic oo isna labadii xilli ciyaareed ee u dambeysay si weyn uga dhex muuqday kooxda Chelsea ayaa ku jira liiska ciyaartooyda xagaagan faarujinaysa Stamford Bridge waxaana ciyaaryahankaasi looga gacan haatinaya horyaalka dalkaasi Faransiiska. macalinka cusub ee kooxdaasi PSG Laurent Blanc ayaa doonaya daafacaasi reer Serbia waxaana PSG ay diyaar la tahay inay bixiso lacag ku dhow 10 milyan oo euro. Demba Ba ayaa isna laga yaabaa inuu u dhaqaaqo kooxda West Brom oo xiiseynaysa wadaadkaasi waxaana sidoo kale laga yaabaa inuu ku biiro kooxda Aston Villa oo laga yaabo in gooldhaliyaheeda koowaad uu ka tago. weeraryahankii hore ee kooxda Wigan Victor Moses ayaana la sheegin halka uu qaban doono maadaama aysan jirin dalab soo gaaray laacibkaasi reer Nigeria. ugu dambeyntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Real Madrid Kaka ayaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto horyaalka Serie A dalkaasi Talyaaniga iyo kooxdiisii hore ee AC Milan. xubintii sportiga ee aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal aqyaar xilligan waana intaas mar kale ay ku duwo stuudiyaha iyaga magaalada London.